السلام عليكم. shiikow inti maha kalar la marsado diintu maxay ka qabtaa midka aan madowga ahayn? haddii su-aasha sidan aad u soo dhigtay ay tahay midka aan madowga ahayn, way bannaan tahay inaad timahaaga kalarkooda aad beddeshaa, xitaa iyaga oo aan caddaan ahayn. adiga oo dhalinyaro ah, in timahaaga oo madow ah aad kalar kale noocuu doona ha ahaadee aad ka dhigtaa way kuu bannaan tahay oo dhib ma keenayso oo falaa ba'sa weeyaan, ilaa midkan aad tiri madow haddii uusan ahayn. madowgu kaasi waa xaraam weeyaan. in timaha la madoobeeyaa adiga oo yar oo timahaagu ay madow yihiin inaad madow kale kusii kabtaa ood kusii dhalaalisaa, iyo adiga oo inta cirooway timahaagu ay cirooween aad kalar madow ahaad marisaa, waa xaraam weeyaan. laakiin ragga iyo dumarkuba tintoodu kalar waa ay marsan karaan marka laga reebo kalarka madowga. waad guduudsan kartaa, waad jaaleysan kartaa, waad cagaareysan kartaa, intaba waa ay kuu bannaan